Lix waxyaabood oo kaa dhigi kara qof aan wax soo saar lahayn. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub. Kaa oo maanta aan ku eegi doono dhowr waxyaabood oo kaa dhigi kara qof aan wax soo saar iyo weliba faa'iido lahayn. Haddii aad isku aragto calaamadahani, waxaad ku sugan tahay halis ee qabo noloshaada. Kahor intaanan u gudagelin muuqaalkeena, waxaan kaa dalbanaynaa inaad page-keena noo follow iyo weliba like gareyso. Asxaabtaadana aad la sii wadaagto si aan u soo dhaweyno saaxiibo sidaadoo kale u qiimo badan. Waxaa jira waxyaabo kaa dhigi kara qof aan wax soo saar lahayn, kuwa oo loo baahan yahay inaad iska tuurto heeryada nolosha kaa saaran oo kaa reebi kara asaagaaga haddii aad rabtid inaad noqotid qof wax soo saar leh. Waxaa sidoo kale jiro dabeecado lagu garto qofkaan wax soo saarka lahayn. Noocaas haddii aad isku aragto ama leedahay mid ka mid ah dabeecadaha hoos ku xusan, waa muhiim inaad si dhaqsi ah u beddesho naftaada, aad ka dhigato sida ugu sareyso, aadna ku gaari karto asaagaaga. Lambar 1, qirsho la'aanta qaladkaaga. Dadka qaarkood waxaa ku adag inay qirtaan qaladkooda, iyagoo qaladkooda dusha ka saara dadka kale. Ma noqon kartid qof wax soo saar leh haddii aad u dhaqanto sidaan, waxaad ku noqon kartaa qof aan wax soo saar lahayn. Lambar 2, hadaf la'aanta. Ma noqon kartid qof wax soo saar leh haddii aadan hadaf lahayn. Ku guuldareysiga inaad yeelataa hadaf la taaban karo waxay kaa dhigaysaa inaad tahay ruux ama mid aan wax soo saar lahayn. Mar walba ku dadaal sidii aad u yeelan lahayd hadaf iyo weliba go'aansasho dhab ah. Lambar 3, hami farabadani. Inaad yeelataa hami farabadani sidoo kaleeto waxay kaa dhigi kartaa qof aan wax soo saar lahayn, maadaama aysan suurtagal ahayn inaad xoogga saarto hal meel. Maxaa yeelay naftaadu waxay ka fakaraysaa meelo badan oo adigaad ku borgaraamisay noloshaada. Taana waxay kuu sababi kartaa inaad ugu dambeyntii hadafkaagu u noqdo mid guuldareysta. Lambar 4, inaad qaadan weysaa go'aan adagi. Ma noqon kartid qof wax soo saar leh haddii aad iska ilaaliso samaynta go'aano adag. Markaad ku guuldareysatid qirashada go'aanadii jilicsanaa ee aad ka qaadatay, waxaa gebi ahaanba noqonaysid mid fashilmay oo aan wax soo saar lahayn. Maxaa yeelay gar iyo go'aan jilicsan oo kugu soo laabtaan adiga. Lambar 5, nasasho la'aan. Ma noqon kartid qof wax soo saar leh haddii aadan helin waqti aad ku nasato. Inaad maskaxdaada iyo weliba jirkaaga siisid waqti aad ku nasataa ayaa kaa dhigaya qof aan waxba soo saar lahayn, maadaama nasiinadu ay nuuriso jirkaaga iyo maskaxda qofka bini'aadamka ah. Lambar 6, talo la'aanta. Talada waxaa lagu tilmaamaa inay tahay waxaad adigu ku nooshahay. Mar walba oo aad noqotaa qof aan talo lahayn, waxaad tahay ruux guuldaradiisu ay dhowdahay. Mar walba aad rabto inaad guul gaarto ama aad rumayso hadafkaaga, yaryadaada waa inaad noqotaa ruux badiya talooyinka ku aadan arrintaasi. Guntii ee gabagabadii maqaalkeena ayaan isla soo gaarnay. Maqaalkaas waxaan nagaga hadlaynay 6 waxyaabood oo kaa dhigi kara qof aan wax soo saar lahayn. Waxaan kaa dalbanaynaa inaad page-keena noo follow iyo weliba like gareyso. Asxaabtaadana aad la sii wadaagto si aan u soo dhaweyno saaxiibo sidaadoo kale u qiimo badan. Tan iyo intaan ku kulmi doono maqaalkan kiisa xiga, waa anigoo Caaliya Cawil. Sidaa iyo nabadgelyo.